السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالية وجنالكين مام شرف ويدلس سودواد ميرك سودنيد دافيد كجوكتين ولا ليga قالية ما أنت موضوعنا وحواي wiil dariskeena waxaa ku dhacday in gabadhii ee guurkii uga baxda haddii labada qof guurka ay ku heshiiyaan ma ahan in guurka looga baxo ma ahan walaalahayga qaaliga ah gabadha walaashay ma ahan in adiga haddii aad qofka isfahantiin gayaankaaga uu yahay guurku heshiisiin heer alaabti lasoo gado la dhigo gurigii kabacdi adna uga baxdid ma ahan walaalahayga qaaliga ah lugooyadana waa laga fiican yahay ma ahan inaa islu goyno annaga walaalahayga qaaliga ah gabadha ma ahan inuu wiilka walaalkeeda lugoyso wiilkana ma ahan gabadha walaashiisa inuu lugooyo walaalahayga qaaliga ah sida ay ku dhacday wiilkan ayaa iskaga sheekeynaya walaalahayga qaaliga ah waxaa ku dhacday wiilkii gabadhii way waday wada socdeen socod kadib waxaa lagu heshiiyey in la isguursado guurkii kadib gabadhiyaa waxay tiri walaalo waxaan aadayaa hooyaday oo goboladaas jirto aan soo fiirinayaa kadacdi aan isguursanayna ama haddaba aan isguursano mayoo dhahay hooyo u tag hooyo markaa u tagtid kadib aan isguursanaynaa waaya waxa ka qaadatay lacag aqligaaga diidaayo way ka qaaday wiilkii waxay ku kaliftay inuu gado aqalkii iyo jiifkii oo dhigo fadhi oo dhigo qado 3 qol oo buuxiyo wiilkii maacuuntii qaadadii wax ay ka maqan tahay qaadaba Allah ka dhigay aysan jirin walaalahayga qaaliga ah markuu intiba soo diyaarsaday wiilkii oo wixii alaab oo dhan oo keensaday walaalahayga qaaliga ah baa waxaa dhacday gabadha inay dhinacii hooyadeed aado goboladaas gobol kamid ah ahayd hooyadii u tagtay markay hooyadeed u tagtay hooyadeed xaafadii ay degneed hooyadeeda waxay ku aragtay wiil ay lacag haysto wiilkii ay isla qabsadeen meeshii iskula sheekaysteen sheeko kadib wiilkii lacag badan uu watay intaasoo lacag ka qaadatay markay lacagtii badneed ka qaadatay wuu guursaday wiilkii markuu guursaday kan kalena waxba umaysan sheegin meeshii ku guursaday lacagteedii soo qaadatay way soo baxday wiilkii kale soo wacday waxay tiri hay walaalkay waa soo baxay isoo doon wiilkiina waa loo sheegay iyada waxay umalaysaa inaan loo sheegin wiilkii gabdhihii baray ebelba oo xaaladooda la socdeen oo gabadha qaraabadeeda ahaayeen waxay dhaheen wareer hebelow ma ogtahay maanta in heblaayo la guursadayo saas ay sheekadu dhacday ma ogi waayo calaa kulli xaal waxaa la dhahaa iska sabar mid kale allah kuu sahlo qoftaas waa ku daysa saas miyaha waayo oo dhahay dhib ma lahay calaa kulli xaal qof dhintaba waa laga sabraa oo dhahay bis waa soo wacday ayadu waxay umalaysaa inuusan wiilka ogeyn in loo sheegay akhbaarteeda markaas waxay samaysay waxay tiri soo doon hebelow waa imaaday meeshaasaan joogaay saas miyaha gabdhihii oo dhahay heblaayo soo bax heblaayo imaaday aan doonay gabdhihii israaceen iyagoo jamacay tageen waa la wada doonay meeshii laga soo waday xaafadii imaaday oo ebel joog jirtay waxay tiri haye sheekadii iyo hasaabihii yartaa in meesha laga sii wado oo wiilkan inuu qabaar moog yahay umalaysaa ayadoo dheesahay bebi imaa markasta dheeso hasaabihii sii wado oo wuxuu yidhi walaalay lugooyo inta ay lugeysa ha iga ahaato ma lugooyo kalaad iila ceel qabtaa waan ogahay inaad guursatay waa ogahay nin inaad lacag intaasoo $1,000 aad ka soo qaadatay anigana khasaare ay gelisay intaad iga qabtid adna waa ogtahay anna waa ogahay qarashka ay gelisay anna waa ogahay marka walaashii nabadgeli lugooyo kale hab iila ceel qabini nabadgeli walaalay idhaaf maya boosa calaa kulli xaal mac salaama saxaabay waxaa dhacday wiilkii in ilaa iyo hadda uusan naag walba markuu la sheekaysto naagtii soo xasuusanaa sida ay u gashay mid walba wuxuu u maleeyaa sida tii u qayaamtay in u qayaamayso marka ma aha walaalahayga qaaliga in anaga isqiyaano ma ahan inaan isku ciyaarno ma ahan haddii qofka aadan u baahnayn walaalo kuuma baahni dheh ha lugooynin qarash ha ka qaadin qarash ha gelinin walaalahayga walaashayda qaaliga aheeday haddaad u baahnayn wiilkan waa wiil walaalkaa Soomaaliyeed ha ku ciyaarin ha lugooynin walaalo waxba adiga walaalo waxba kuma qaban kari raali noqo raasi qof kaleeto aniga maya adoo heli karti ma aha inaad inta aqalkii oo ku xukuntid oo jiifka oo dhigo fadhiga qadada dhigo qarash geliyo adiga qarash aad ka qaadatid haddana aad guurka uga baxdid meeshaas kalsooni dara ku dhacday wiilkii inuu naagihii ka dido oosan guur oo dhan oosan hataa hadda oosan fiirinin hamigiisa dhanba gadaal oo cishtaa dhacda walaalahayga qaaliga ma ahan inaan islu goyno walaalahayga qaaliga lugooyada waa laga fiican yahay aan is aamino haddii aad gabaray aad rabin guurka wiilkan walaalka ah
ha ku qasbin in uu diyaariyo aqalkii dhibaato qarash badan aad gelisid haddana aad uga baxdid walaal taas dhibaato adiga kugu maqan waaye sababtoo qof bilaadanka lama lugood wax ka xuma lahan walaalahayga qaaliga ah walaalahayga qaaliga waxaan ka codsanayaa inaad usoo duceysin sidii kal ilaaba wiilkaas faataxada usoo mara usoo duceeyay in ilaahay xaba gabar khayr qabta ilaahay u sahlo kalsooni daraha ku dhacday ilaa hadda naagaha wuu ka didsan yahay sidii tii ulugoyso mid walba inay ulugoynayso u maleeyaa marka haddii aad channelkayga ku cusub tahay subscribe dheh laagna ii saar ii share garay commentna ka bixi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu